Haweeney Somali oo lagu xukumay in loo tarxiilayo dalkeeda sida ay shaacisay Dowlada Norway. Halkani waa Deersame iyo anigoo Ahmed Xasan. Ugu dambayn go'aan ayaa laga gaaray haweeney Somali oo ku nool dalka Norway go'aankaasi oo in loo tarxiilo dalka Soomaaliya kadib markii lagu helay dambiyo waaweyn. Wasaaradda Cadaaladda Norway ayaa ku dhawaaqday in haweeneydan lagu helay falal argagixiso sanadkii 2019 laakiin dhowr mar oo leesku dayay in loo tarxiilo waxaa adkaatay sidii loogu tarxiili lahaa dalkeeda. Sababta ugu weyn ee xilligaasi ayaa ahayd in ay dalkeeda dhibaato kala kulmi karto, laakiin wasaaradda ayaa hadda sheegtay in aysan jirin wax dhibaato oo xilligan la kulmi karto. Haweeneydan ayaa lagu helay falal argagixiso sida ay sheegtay Dowladda Norway, waxaana ka mid ahaa inay xiriir la samaysay ururka Daacish sanadkii 2019 ayaa lagu xukumay 2 sano iyo 9 bilood oo xabsi iyadoo dhammaysatay xukunkaasi. Waa haweeneydii ugu horreysay ee gudaha dalka Norway lagu helo fal argagixiso, isla markaana lagu xukumo dambigaasi.